cunayo waxaan leeyahay nin fiqiir ku koray baa hadduu lagu fidmeeyaa in kastaan farraqataydu way ugu fillaataay dhaxaan intaan fooq u baxay fidiye laanjeer cunayo adiga le dhinac gidhoobi buu ahaa waadan iyo aqoon baadan ii lahayn waxay ahayd inaad gabaygii salaan marka hore tixraacdo ama taariikhda eegto haddaad si arag u baahan tahay taariikhdii daraawiishta ina cabdilla xasan buuggii soomaaliya si arag raaga caatiya la awoogaya ka baadh taariikh keli baan maanta duubay oo uu ka jawaabayay nin la yidhaahdo cunaaye ayaan doonayaa inaan in yar cunaaye uga sheego isma lahayn nin reer Sheekh Isxaaq u jawaab anigoo oday afka beesha reer Sheekh Isxaaq ku hadla kilibka maanta marka hore aan duubay anigoo aan nabadgelyada ayaan ka hadlay markaan nabadgelyada ka hadlay anigu shirkadda Alnuurna ma diidin tartan in loo qabtana ma diidin horumar in loo qabtana la galana ma diidin laakiin waxaan diiday amni xumada meesha taala saasaan anigu uga hadlay kow hadda waxaan ka hadlayaa haddaba oo aan jawaab cad siinayaa ninka la yaa cunaaye waxaan leeyahay nin fiqiir ku koray baa hadduu lagu fidmeeyaa in kastaan farraqataydu way ugu fillaataay dhaxaan intaan fooq u baxay fidiye laanjeer cunayo adiga le dhinac gidhoobi buu ahaa waadan iyo aqoon baadan ii lahayn waxay ahayd inaad gabaygii salaan marka hore tixraacdo ama taariikhda eegto haddaad si arag u baahan tahay taariikhdii daraawiishta ina cabdilla xasan buuggii soomaaliya si arag raaga caatiya la awoogaya ka baadh taariikhda uu ku leeyahay waayahay gobonnimo doonkii taariikhda awoogay si arag raaga ku leeyahay ka baadh aan kuu sheego habar jecla dhaaf reer Sheekh Isxaaq dhaaf waqooyiba nin dega ninkii ugu geela badnaa baana marka ugu horreysa aan kuu sheego waqooyiga Somaliland nin dega reerkii ugu geela badnaa reer Sheekh Raaga caatiye loo oran jiray baan subaxan garaadsadayna ramadka ku xareysnaa haleelada iska daa rimayda iska daa korankii aaranka iska daa dhalayga subaxa xareysnaa malama kala taqaanide haleelada ma daayeen in cunay hilib ugaadhay haleeladan ku sheegay geela marqoolihiisa aan la marin baa leeyahay waxaan ku garaadsaday afar dhal aan magac lahayn baan gurigeyga ugu garaadsaday aan magacba lahayn oo magacba loo bixin leeyahay wayna hebla markii magaciyo loo kala waayay faanahayga ahaatee ninka yidhi geel annaga ahaynee cid ku faantu waayna adeerkay buu ahaa faarax saarag buu ahaa geel annaga ahaynee cid ku faantay buu waayay aan kuu sheego cunayo taariikhdaada CV-gaaga iminka waan bandhigi karaa laakiin wax inaan kugu taagsadaan ahayn cunayo waxa lagugu bixiyey hudheeladaadii ruugi jirto waynu sugnahay aan baysan jirtay aniguna awogay wuxuu ahaa ninkii lalahaa si arag ba muudayo intuu saaca ku faanayo maana dhoobi ugu sheegtay wallaahi billaahi wa tullaahi subixii aan garaadsaday wali ilaahay baan kuu maray way taqaanaa habar jeclo iyo habar yoonisba ragga raaci jiray geela iyaga haddaan kuu sheego kuwa jifidaada baa ku jiray dhoobiga ka ahaa ana ilisi jiray loorin jiray u soo sidanka geela adeer nabadgelyada waa la sheegayaa waa la cadaynayaa wixii nabadgelyo xumad keenaya waa la sheegayaa hadday heekatay hadday shirkadda Alnuur tahayba ciddii nabadgelyo xumada wada waa la sheegayaa ciddii khalad wadana waa la sheegayaa سلامة بالله بقوله قرية نقوله أنا جاب قرية يا كبدن استحق على نفسك نكي فوق خدي سيء وقري إن أنكوف أنا ما إسكده